يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. إلهي سبحانه وتعالى وحده دماتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دمان مدى حرق إلهي قبصده كتابك إلهي يا إسلام لماذا ولا تفرقوا أنا كلتقنا. وحكلوا إلهي وحكلوا رسول صلوات الله وسلامه عليه إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوهم والله أمركم. ويريد دمات إلهي رألوه ويدي قال نقضى إن دمات الحالق إلهي عابدين ويدو شريك يلين دمانا إن الحالق إلهي قبزتين ومدودين ويدو كالتين كايدين مدحانا إن دو قرقارتين ودون استحيسين ولا ليال ما تقرني مداسي ووح طالق وشريعة إسلامك وحنا اللي نوقف عيهاي إن حقا إن نقول هذا يبدأ وأمن كينا يوضا شركينا يا إيماكينا يوضا نمدينا أنا والله هذا ما قام ما يسخصنه وما أتسيا الشيخ حامد أحمد نظيف إما كان وحن كسر وين يا حقيا دولته سيد مدى بورما محمد عبد حاشي سيو مناسبة سيدي يتبان كما وكلمتي سوينا كسر حقيا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إله دمانتين مدح شعبي أضيال هويوين دلير عرور أرضي اسكوك يعني هل كان ينغو عفمات قبنا aynu ku xuseen inoo suurta galiyay inaanu ku xusno xafladda weyn ee gooni iskutaanka Soomaaliland 18 May waa munaasabadii ama sanad guuradii 12aad ee Soomaaliland ay haysato xornimadeeda gooni iskutaanka. ilaaha saamahad inoo suurta galiyay inaanu halkan isugu nimaadno ku jeero mahadcelinna mahad ilaahay kadib waxa inoo farxad ah haddii aynu nahay reer Boorame shacbiga reer Boorame haddii aynu nahay madaxda degmada haddii aynu nahay cuqaasha haddii aynu nahay odayaasha haddii aynu nahay hooyooyinka waxay noo farxada halkan inaga oo faraxsan oo xor ah oo jecel gooni iskutaaga oo aaminsan dowladnimadeenna inaynu halkan iskugu nimaadno oo aynu xusno gooni iskutaaga iyo dowladnimadeenna. walaalayaal waxaan idiin sheegayaa xornimada iyo dowladnimadu iyo calanku waa wax qaaliya waa waxa aynu ku gaadhnayno ku caalamaalay waa waxa keena horumarka waa waxa keena waxbarashada waa waxa aynu dhammaan dowladka Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadloo dhan aynu kaga duwanahay. waxaynu nahay aasaasayaashii jiritaanka Soomaaliland. magaalada Booramo waad ogtihiin waa halkii lagu aasaasay Soomaaliland. taariikhdeeda iyo magaceega magaalada marka laga reebo Burco oo 19 lagu soo aasaasay halkii dowladnimadan maanta la iska daba dhaxlay lagu yagleelay waxay ahayd Boorama. waxaynu loo baahan yahay inaynu dowladnimadeena daacad u noqono inaynu jiritaanka dowladnimadeena uga horeyno cid kasta. Somaliland ha noolaato jamhuuriyadda Somaliland ha noolaato madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ha noolaado madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland ha noolaado. walaalayaal soo Somaliland maaha dowladeennii aynu daacad u nahay gooni iskutaaga soo dhammaanteen halkaa umaynu soo istaagin gooni iskutaaga inaynu xusno. walaal waxaynu doonaynaa inaynu nabadda ku adkaano inaynu dowladnimada ku adkaano inaynu kala dambaynta ku adkaano inaynu nabadgelyada ku adkaano. sidaas ayaynu meel ku gaadhaynaa. horumarku wuxuu ku jiraa inaynu calankeenna ku dheganaano. ka salaamo oo aan salaan munaasabadan maanta aynu halkan iskugu imanay inaan gaadhsiiyo ummadda halkan iskugu soo baxday u hurtay waktigooda iyo naftooda u huray inay halkan yimaadaan. waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. annagoo tixgelinayna dadkana sharfay aanu ilaa xalay mikrofoonada halkan kaga afuufaynay nagala soo qayb galay munaasabadan inaanu ku raajinno oo aanu hadalka ku dheerayno nagamay mutaysan. waxaanu idin leenahay waad ku mahadsantihiin sidii wanaagsanayd ee aad noo aqbasheen inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan
annaguna waxaanu idin leenahay oon halkan idinka gaadhsiinaynaa sanadkan sanadkiisa ilaahay ay nagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo caafimaad iyo cibri dherer iyo nabadgelyo aynu ku waarno ayaynu maxay ahaydaan halkan ayaanu ku ducaysanaynaa oo aan ku wada ducaysanaynaa idinkana idinku ducaynaynaa wafdiga halkan nagala socdana waxaan leenahay waa aragtiin boorama waxaan leeyahay ilaahay sanadkiisa caafimaad iyo cibri dherer ay nagu gaadhsiiyo dadkaba aynu wada noolaano waa maalin qaali ah waa maalin in caan gaara qaadanaa inagu waajib tahay markaan yaroo gaba annaan ka tirinaya hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye gobanimaanoo haysta oo calankii gawriiro oo gaaja kala gurre iyo gorofkii caydheedba oo gaalmadow iyo caddaan geesiskagaa leexshay oo guulihii aan hantiyey cidihii gaadhayni maandeeqna ay godoshay way caana gobolayni way nirigtii geesaga jirto way weliba guuxayso aan ogaawihii buuxsaday oo gelin calooshayda unbaan la guday oon hashiigeeyey reer kalaaye unbaan la guday oon hashiigeeyey reer kalaaye gacantiisa goortay gashay buu geeri ii qoraye waxaan daba guuleeyabaa kolkaan gaadhi kari waayey yaan geeri aaminay intoo qaad اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وزيرنا وهجامني وزير كبيرها فارح عند جذوله إيو قدوميها قبلها قدوميها قبلها دجانك صلاطينك مروينك عيد ماذا قلب كسله بوليسك ملتريك شعبك الرير بورمه waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib Soomaaliland ha noolaato maxaa dhacay lama hadalo Soomaaliland ha noolaato dhankaasi ma haddii Soomaaliland ha noolaato madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado madaxweyne ku-xigeenku ha noolaado maanta waa laga sheekeeyey sanad guuradii 21aad ee go'aansiyada Soomaaliland inaynu maanta u dabaaldegayno waxaynu haysanaa oo 21 sanadood aan adduunka ka iibinayna nabadgelyo ahayd nabadgelyadii oo markhaati aynu u haysanay dalkeena Soomaaliland oo wadooyinka albaabada hortiisa lagu kala iibsanayo dahabka iyo doolarka oo adduunka kala jirin Yurub ma jirto Maraykan ma jirto Afrika male Aasiya male taasaa markhaati nooga ah nabadgelyada aynu haysanay in adduunka cid haysta ayna jirin haddaba waxaan leeyahay oon ugu baaqayaa shacbiga reer Soomaaliland nabadgelyada inaynu adkaysanno الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وفدك وزيرك كوبا وزيرك وزارة بيرها وزيرك عدالة وزيرك دبتجنتا agaasimayaasha boosada isgaarsiinta golayaasha qaranka golaha wakiilada golaha guurtida wafdiga dhammaantood ka yimid magaalada Hargeysa salaadiinta ururada haweenka odayaasha madax dhaqameedyada dhammaan dadweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan ama sanad guuradii 21aad ee go'aansiyada Soomaaliland waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaanba Soomaaliland meel kasta ay joogto waan ognahay waa sanad guuradii 21aad ee ka soo wareegtay go'aansiyadii ama la soo noqoshadii xorriyadda Soomaaliland walaalayaal waa wadaagtiin oo waynu ognahay lixdankii inay naga lunta xorriyaddii lixdankii
dabadeedna koob iyo sagaashankii ayaan la soo noqonnay xorriyaddeenna boonisbitaanka somalilan somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato ha waarto ha jirto ha joogto waxaan idigu guwaabinayaa walaalayaal haddaad tihiin dadweynihii magaalada boorama waxa ugu weyn ee maanta baaqa andirannaa ee andirannaa wuxuu yahay in lagu adkaado nabadgelyada somalilan waxaynu ku soo barbaarnay ee aynu ku caanka ku nahay ee aynu qayrkeen uga duwannahay maanta waa nabadgelyada inaynu ku gacan adeegno ayaa loo baahan yahay 21 sano ee aynu soo joognay waxaynu ku caanamaalay waa nabadgelyo nabadgelyadu waxay noo keentay horumar bay keentay waxbarashay keentay waxay keentay dhismayaal bay keentay maanta waad ogtihiin gobolka awdal waxa dariiqya laga wado waxa horumar laga wado waxaasoo dhan waxa keenay waa nabadgelyada markaa nabadgelyada inaynu adkaysanno ayaa loo baahan yahay dhammaanba somalilan dadka ku jira ee gobollada dalka oo dhan waxaan u soo jeedinaynaa maanta baaq baan soo jeedinaynaa baaqaasi wuxuu yahay waa baaq nabadeed in nabadda la adkeeyo in jiritaanka somalilan la adkeeyo waxyaabo fara badan baa jira oo inagu socda waxaa inagu socda shirarkii lagu wada xamar ayaa inagu socda waxaa inagu socda casharaad iyo wadaadadii ayaa jira oo meel walba doonaya inay qaraxya ka sameeyaan waxaasoo dhan waxa loo baahan yahay inaan iska ilaalinno diyaar maantiin inaan nabadgelyada adkaysanno diyaar maantiin inaan doonaga soo wada jeedsanno waxaan idigu guuraabinayaa inaad soo jeedtiin oo aad u soo jeedtiin dalka oo wixii dhibaataynaya ee nabadgelyada waxyeelaya inaad ka hortagtin baa loo baahanya waxaan u soo jeedinaynaa shaqaaqadii daraad ka dhacday magaalada hargeysa waxaan leenahay tun loo baahnaa ma ahayn 21 sano ka bacdi inuu shacabkeennii qoligii aqalka yaallay intuu soo qaado uu ku weeraro ciidankii qaranku dhacda foolxun bay ahayd oo aad iyo aadaan uga xunnahay aad iyo aad baan uga xunnahay soo kama xumidin ma ka xunsin dhacdada innaga yaynaynagu dhicin aan ilaalinno qarannimada somalilan meelaan uga soo wada jeedsanno wax kale oo wax noo hayaa ma jirto xamar iyadiibaa heshilla iyagiibaa is haysta maanta wax lagu halka inoo yaalla ma jiro waxaan kaga baxayaa oo aan adkaynayaa qarannimada somalilan waa inaan adkaynaa meel uga soo jeedsannaa nabadgelyadana waa inaan adkaysannaa cadow fara badan baan leenahay meel walba waa lanaga soo weerarayaa waa inaan isku tashannaa diyaar maantiin nabadgelyada inaan ilaashanno sidaasaan lagu guwaabinayaa waan mar labaad waxaan soo dhawaynayaa wadka ku jirto inuu ilaahay waddankeenna barwaaqeeyo la jaanqaadno anaynuna samayno mid baan maanta fursadii ah oon dadweynaha u sheegayaa waxa weeye nimcadaha ilaahayna siiye waa lagu mahadnaqaa aad iyo aad baa lagu mahadnaqaa waxa weeye mandar khayr qabnaa inoo bilaabmay dadweyne waxaan ugu baaqayaa inay soo celiyaan beerahoodii qotaan aan gaajada ka baxno oo aynu biyaha xeebaha inaga tegaya biyo xidheenna samaysanno maxaa yeelay innagoo wanaagsan aynu aad iyo aad halkaa aad ugu fiirino baddeenna kalluunka kala soo baxno gaajadu halkaa inaga baxdo dadweyne waxaani leeyahay nin walooba beer qado nin walooba maxaa yeelay shabaga kalluunka iyo bahalkeega samaysto taasaan horumar ku gaaraynaa gaajada lagaga baxayaa intaynu gacmaha hoorsan lahayn bariis iyo galley qadhmuun ay nooga timaado dibadaha waxaan leeyahay taa maxayda ku samaysta waktiguna uu kooban yahay isku duubnida iyo nabadgelyada ilaahay aynu adkeeyo sidaan ayay nabadgelyo dhalinyaro بسم الله الرحمن الرحيم مركز روح سلامية مدحونا جمهورية سومالان مدحونا كحييكا عبد الرحمن عبد الله سامعي وسيرة قيمها بلن أيا سمياشا تنصى أركا
maayirka dhallinyarta qiimaha badan ee sharafta iyo karaamada ku xusan maalinta 18 May waxaan leeyahay Soomaaliland ha jirto Soomaaliland ha jirto Soomaaliland ha israacdo Soomaaliland ha noolaato waxaan leeyahay waxaan kaloo u mahadcelinayaa ciidamada qaranka oo runtii amniga sugay oo soo dhaweeyay cid kasta oo ka soo qayb gashay munaasabaddan maanta taasi waa hore suurto gashay ciidamada qaranka la'aanteed inaan munaasabaddan isugu nimaadno waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland laascaanood ilaa iyo lawyacado oo in aan ka shaqayno nabadgelyada aan iskala taagno hay-adaha amniga innaga oo kaashanayna cuqaasheenna waxgaradkeenna aqoon-yahankeenna iyo mas-uuliyiinta qaybaha kala duwan sidaa darteed waxaan hadalkayga ku soo koobayaa xaaladdii maalintii dhaweyd ka dhacday caasimadda magaalada Hargeysa waxaan leeyahay ciidanka qaranka ha la ilaaliyo shicibka amniga ha ilaaliyo aad baan ii salaamayaa hore waxaan salaamayaa dhammaanba marti sharafta isugu jirta madaxda wasiirada maamulka gobolka maamulka degmada cuqaasha haweenka iyo dhammaanba dadweynaha sida quruxda badan maanta uga soo qayb galay munaasabadda xuska 18 May ee loogu dabaaldegayo maalinta goonisitaanka Soomaaliland runtii waa maalin weyn maanta waa maalin run ahaantii ku timiday dhacsi waa maalin baan ku yidhi laga soo celiyey qarankii loo diiqay walaalaha koonfureed Soomaaliland 60kii waxay ahayd state madax bannaan oo 4 cishaba haysta madax bannaanideedii taasi oo ahayd qadiyad korkii taagnay Soomaali weyn in Soomaaliland magaalada Hargeysa ahaydna magaaladii ugu horeysay laga taagay calan Soomaaliyeed tiina ay noqotay qadiyadii markii taagneed inay ka xoog badatay loona diiqay qarankeenni in laga iibiyo in loogu hadiyadeeyo koonfurta tii waxay keentay wejigabax iyo hugow keentay mar labaad inay ka dhiidhiyaan kacdoonnadii SNM oo ahaa garabkii milatariga waxaan odhan karnaa Soomaaliland laba garab ayay lahayd garab waa garabkii milatariga ee kacdoonnadii SNM ay ka dhasheen soo dhiciyay ee qori caaradii ku soo dhiciyay garabna waa garabkii odayaasha ee run ahaantii dhidibada u aasaasay nabadii horumarka maanta aynu haysanno sidaa darteed waxaynu odhan karnaana waxaa mudnaan leh in dawladdii qori caaradii ku haysatay jabhaddii SNM ee xoraysay maalinta uu badbaaday qaranka Soomaaliland oo maalinta ahayd kuna wareejisay dawlad rayada mudnaanteeda koowaad bay leedahay ta labaad waxaa mudnaan labaad leh odayadii u halgamay ee u kacay ee nabadda ahaa ee ka koobnaana gobollada galbeedka iyo bariga sida odayadeennii maxay hayday gobolkan awdal ee magaca lahaa runtii ee uu ka sii nool yahay xaaji daahir ee uu ka mid ahaana maxay hayday cabdillaahi sheekh ali jawhar ee uu ka mid ahaa abubakar cumar cabdillaahi waaweyn meesha suldaan iyo odayaalka uma laga yeerinaya cuqaashiga leylaayo baan u malaynaya iminkaa lagu xusuusta horta waxaan soo dhaweynayaa marti sharaftay noo timid ee wasiirada cuqaasha suldaanada dadweynaha sharafta leh ee sida quruxda badan uga soo qayb galay munaasabadan 18 May waxa weeyaan hadalkiina imaba hambeynin waxa weeye horta waxaa lagu noolyahay waa nabadgelyo waxa lagu barwaaqoobaa waa nabadgelyo waxaanan ka xunnahay wixii dhacay maalintii dhaweyso ee ka dhacay caasimadda Hargeysa waxaan uga tacsiyeynaynaa kuwii ku dhintay faamligoogii iyo Soomaaliland waan uga tacsiyeynaynaa mana ahayn munaasabadaasi sida looga qayb galay waxa ay si boolxun si Soomaaliland laga filayeen ma ahayn Soomaaliland waxa lagu ogaa barwaaqo iyo nabadgelyo raxiim alxamdulillah ilaahay baa mahad leh ilaaha ina soo joojiyey sanado badan oo isku xiga inagoo Soomaaliland oo nabada ilaahay loo suurtageliyey inaan xaflada noocan oo kale ah aynu iskaga nimaadno mas-uuliyiinteenna iyo shicibkeennaba ilaahay loo suurtageliyey baa mahad leh intaa ka bacdi wufuudda wasiirada ah iyo xildhibaanada qaranka mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmaba cuqaasha iyo odayada
dhallinyarada ka soo qayb gashay xafladda dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay la tahay maanta inta bannaan ee hadal halka ka bannaani waxa weeyaan oo keliya in la isku hambalyeeyo maalintan qiimaha badan leh ee aynu u dabaaldegayno maalintii aynu isku afgarannay gobolladeennii waqooyi ee soomaalidii hore ka tirsanaa inaynu gooni isku taagno oo aynu iskeenu go'aansannay oo aan ahayn wax laynagu qasbay ilaahay inaan isku hambalyeyno waxaan ahayn oo maanta inoo bannaani ma jirto askarta waxaan ka codsanaynaa dadka inay isdhowraan dadka iyaan ka codsanaynaa askarta maxubbay la soo baxeen hal isdhowro walaalayaal anigoo xaqdhowraya cadceedda anoo xaqdhowraya mas-uuliyiinta faraha badan leh anoo xaqdhowraya kelmadda keliya maanta aan ka bannaan sida lay sharfayna aad raallo uga ahayn aan maanta xafladdan oo kale ereyga ka idhaahdo waxaan keliya rabaa inaan idin xasuusiiyo inankaygii 29 ku dhashay boorame innaga oo sidaa xornimada u haysanna ee ku dhammaystay dugsiyada hoose iyo ka dhexe ee suurtagal ilaahay nooga dhigay inuu dugsigii sarena sheekh ku soo dhaqaato iskuulkii soos maantana jaamacadda camuud dhiganaya ilaahay baa mahaddaa leh waxaan leeyahay wax kale oo aan ku mashquulo oo intaa ka badan oo qaban lahaa ma jirto intaa iyo inta ka badanna ilaahay idankii waxaa ka rajeyna inoo suurto gasho waxaan ixtiraamayaa mas-uuliyiinta waxaan ixtiraamayaa saxaafadda waxaan ixtiraamayaa dadweynaha aad iyo aad baa u baahsantiin waan idigu soo dhawaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caasimadda ee ka soo qayb galay munaasabadan inay kaga qaataan halkan khayriyada boorama oo hogaaminayaan wasiirada cadaaladda beeraha boosa iyo isgaadhsiinta dibudejinta iyo qaar kaba badan oo na garayn baan u malaynayaa reer awdalow ama reer boораmow taariikhda somalilan had iyo jeer waxaa laga xusaa dhisitaankii jamhuuriyadda somalilan halkan lagu dhisay ee 2 sane ee sanam ay ku dhammaatay aasitaankii 2 sane ee sanam iyo istaagiddii qarannimadii somalilan ee sheekh cali jawhar ayaa halkan lagu xusaa gobolka had iyo jeer waxaynu leenahay taariikho kale oo ka waaweyn baynu somalilan ku leenahay oo maanta u soo kacay inaan idin xasuusiyo waxaynu nahay gobolkii uu ka dhashay madaxweynihii ugu horreeyey ee cod shacab ku fuula kursiga somalilan waxaynu leenahay madaxweynihii ugu horreeyey ee ku wareejiya si dimuqraadiyada oo xorriyada oo coda ku wareejiyana gobolkan uu ka dhashay waxaynu leenahay xubintii ugu horraysay ee ku dhawaaqda 1999kii burco gooni iskutaagga somalilan oo ahaa mudane suldaan maxamed jaamac samatar oo hogaaminayay waftigii halkan ka baxay waxaad moodaa qoladana saname qoryaha ee ay nagu xoraysay ee taliskii nagaga eriday inay somalilan tay naga leedahaa la moodaa marka meelaha laga hadalayo innagama laha way innaga uga mudan oo kale waxaynu ka yeelna mayno laynaga yeelan karaan ma jiro waxaan ku soo dhawaynaya wafdiga ballaadhan waxaan xaqdhowraya cadceedda waxaan karaamaynayaa salaadiinta waaweyn imika timiday assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu 18 mayna waa tii aan isla ogeyn si ay noqotayba tii aan isla ogeyn weeyi tii aanu gacantayada ku samaynay weeyaan inkastoo dhaawacyo ku yaallaan taa markaan u baydho gumaystuhu dhulkuu kala gatay in layna gaadhsiinin ee geesiyaashii ka kacay gawrac lagu laayey geeska afrika oo kale markaan gacan togaalayey meelaan gantaalaha culculus lagu garaacaynin ama geedaad hoos joogsatoon meydku garaboolin geyigeennan mooye lawaa gacanlayaalo oo warhay nabadda waa lagu gamaayay yaan la garan waayn gobonnimo ilaah kuu gartoo goobta ku heshiisay oon guullo mooye cid kale gacan ku siinaynin geyigeenna somalilan bay u gaar tahay warhay nabadda waa lagu gamaayay yaan la garan waayn
halkii gacanta lagu haysan jiro laga geliiliyoodo oo geeshka mooye cid kale gacanta saaraynin geyigeenna somalilan buu u gaar yahay warroy nabadda waa lagu gamaayayaan la garan waayn gidaarkaad xalay seexatood gamaaday oo toostay oo aan xabadigow ka odhan laguna guulguulin geyigeenna somalilan buu u gaar yahay warroy nabadda waa lagu gamaayayaan la garan waayn gege lacag la soo kulliyo gaadhna laga haynin gege lacag la soo kulliyo gaadhna laga haynin shabab kale eega soo qaybsato munaasabadda sigay kurtamay ayaan salaamayaa waxaan salaamayaa madaxweynaha iyo madaxweynaha labadaba waan salaamayaa waxa weeye munaasabadani waxa weeye waa 18 May wey adduunkana cid waliba daata calanka qaato iyo isku taagaan oo ku ciidaan oo sharaf ay maanta sharaf weyn u sameeyaan wey maanta waa ciideen si fiican baad u ciideen way niga muuqataa waa wax diida qaba wey oo weerahay hadiye jeer munaasabada xafladaha waa weyn si fiican u tixgelisaa waxaan kaga baxayaa madaxweynaha jumhuriyadda Soomaaliya waado madaxweynaha Soomaaliya waado والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلبان waxaan mahad u celinayaa waftiga ka yimiday magaalada Hargeysa oo hogaaminayo wasiirka beeraha wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta wasiirka cadaaladda wasiirka dibudejinta iyo xildhibaanada golaha oo ah maalintii aan dib uga soo noqonay gobonimada Soomaaliland maalintaas oo ah maalin farxad leh dadweyne waxaan leeyahay waad ka soo baxday xilkiinii mahad ballaaran ayaa loo celinayaa qodobka labaad waxaa Soomaaliland waxay ku caalamaashay nabadda waxaan leeyahay dadweynaha Soomaaliland bari ilaa galbeed hal la ilaashado nabadda nabadgelyadu waa shay qaaliya arrinta saddexaad aan ka hadlaya waxa weeyaan beesha caalamka waxaan leeyahay Soomaaliland way buuxisay shuruudihii dowladnimo isla markaa waa in la aqoonsado Soomaaliland والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته